ismaaciil bal maxaa xilligan soo dedejiyey isoo dhiibitaanka kooxahan iyo howlgalladii ugu dambeeyay la sameeyay si guud marka aad marka hore aragti ahaan uga waranto meelaha hawdka iyo deegaano weli ay farakutiriso al-shabaab ay ku harsiin ay ku dhoomaalaysanayaan waxayna taas ay dhabarjab xoog leh ay ku keenaysaa fikirkii guracnaa argixisada al-shabaab waxaana ay ka dambeysay markii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay qaadeen tallaabooyin taas oo lagaga xoreeyay dhul ay gabaad muddooyinkii dambe ka dhiganayeen dadkan ay ku dhibayeen marka waxay taasina dhalisay markii howlgallada la xoojiyay in ay firxadaan oo ay ka firxadaan meelihii ay dadka baadda iyo cagajugleynta ay ku hayeen dabcan horjoogayaal ayaa ka mid ah dadka hadda la taaban karo ee la dhihi karo waxay ka laabteen fikirkaas oo isku soo dhiibeen dowladda iyagoo qaarkood ay hay'adaha amnigu ay soo bandhigeen sida NISA oo shaacisay in maleeshiyaad xag jirka ka tirsan ay soo dhiibeen oo isku soo dhiibeen dowladda Soomaaliyeed taas waxaa Mustafa dhinaca kale barbar socdo dhabarjab xoog leh oo kooxdu ay ka soo wajahayso dhinaca operationada ama howlgallada joogtada ah ay sameeyaan laamaha amniga kuwaas oo ka dhacaya magaalada Muqdisho ama gobolada kale ee dalka meelo kala duwan ayaa loogu tagay lagana soo qabqabtay ilaa dhowr kamida xag jirka al-shabaab waxa marka aan dhihi karnaa waxay aad ugu dhabarjabayaan howlgalladaas iyo operationada isdaba socda ay sameynayaan ciidamada dowladda Soomaaliya ee xoogga dalka Soomaaliyeed ama laamaha kale ee amniga sida booliiska iyo nabad sugidda oo laba jibaaray arrimahaas la xiriira baacsiga firxadka al-shabaab waayay ismaaciil dhinaca kale maadaama ay saan usii badanayaan dhalinyarada ama horjoogayaasha al-shabaab ee hadda dowladda isku soo dhiibaya waxaa jira qaar badan oo ka mida isla horjoogayaashaas oo iyana gacanta lagu soo dhigay oo howlgallo kala duwan oo qorshaysan hay-adaha amnigu inta sameeyeen gacanta lagu soo dhigay maxay dhabarjab ah oo ay u keenaysaa kooxda maxayse fursada hoosiinaysaa ciidanka hadda guud ahaan isku sii ballaarinaya gobollada Soomaaliya oo dhan dabcan kooxdu dhowr siyaabood ayay u shaqaysaa markaan tusaale usoo qaadano dhinaca propaganda iyo miidiyaha dad u qaabilsan ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho howlgal laga sameeyay oo NISA ay soo bandhigtay sidoo kale xag jirka dad horjoogayaal ah oo dadka waxay ugu yeeraan zakawaadka ama lacagaha baadda dadka ka qaada ayaa la soo qabtay shabakado isku xiran oo dhaqaale u soo saaraya kooxda ayaa hay'adaha amnigu ay gacanta ku dhigeen marka la miisaamo oo lagu qiimeeyo waxa ay u dhimayso tusaale waxa laga yaabaa iyaga oo raba inay qof dilaan in qofkaas sawiro laga qaado oo maxay ahayd to la rabo in dadka lagu cabsi geliyo marka laga fiiriyo halkaas waxaa la dhihi karaa dowladdu waxay qaaday tallaabo wax ku ool ah oo waxa la burburiyey unug argixisada dhinaca propaganda iyo dhibaatada bulshada u qaabilsanaa meelo fara badan oo al-shabaab ay ku qaadi jireen lacagaha baadda ayaa jira oo ciidamadu gaareen oo ay xoogga dalka Soomaaliyeed ay gacanta ku dhigeen waxaa ka dhashay in ay ka firxadaan kooxdaas horjoogayaashoodii iyo maleeshiyaadkoodiiba ayna muxuu qaarkood hadda dowladda isku soo dhiibeen ninkii zakooyinka iyo lacagaha waxa baadda ah zakooyinka ugu yeeraan qaaday al-shabaab ayaa ka mid ah dadka hadda gacanta lagu hayo waxaa dareemi kartaa weli kuwo badan oo ay jiri karaan hadda inaan miidiyaha iyo bulshada la wadaagin oo baaris ay ku socoto oo weli ciidanka amnigu ay gacanta ku hayaan marka waxaan dhigi karnaa marka la miisaamo oo la barbar dhigo howlgallada socda iyo kuwa is soo dhiibaya iyo kuwa magaalooyinka gudaheeda lagu qabanayo wax weyn oo dhaawac ah ayaa gaaray kooxda oo markii horeba gobollada hadda meelaha qaar ku dhuumaalaysanayay ugu dambeyn ismaaciil
al-shabaab muddooyinkii ugu dambeeyey waxay la kulmayeen jab xoog badan oo kasoo gaaray militariga Soomaaliya oo howlgaladii ugu dambeeyey degmooyin iyo deegaano badan al-shabaab looga saaray. marka hadda fiiriso sida xaaladda kooxdu ay tahay oo horjoogayaashooda iyo maleeshiyaadkooda qaar badan oo kamida ay marba marka ka dambaysa ku sii qancayaan inay fakarkaas argagixisada ka tanaasulaan oo dadkooda ay ka mid noqdaan iyo in qaar badan oo kamid laftooda meelaha ay ku dhuumalaysanayaan loogu galo la soo qabto mustaqbalka kooxda muxuu ku dhameyn karaa waqtiyada soo socda wixii ka dambeeyay warcadayo haddii aad xasuusato halgankii xooganaa ee loo soo galay 2011 markii laga saaray magaalada Muqdisho waxaa sii daciifayay mustaqbalka iyo jiritaanka kooxda waxay mar walba ay isku dayayeen inay dhalinyaro ay marin habaabiyaan oo ay qaldaan oo ay u daaraan aflaam kale oo xagjirnimada la xiriirto waxaa mar walba ay kooxda ay dhiig ku gelin jirtay ama ay kor isugu soo qaadi jirtay weerarada argagixisada ah ee xagjirnimada ee bahalnimada ee dadka lagu leynayo hadda ma jiro mustaqbal ama meel la dhihi karo haddii lagu duulo oo ciidamada dawladdu ay weerar qaadaan al-shabaab xoog leh oo iska kiin caabi kara ayaa loogu tagayaa haba yaraatee hadda ma jirto laakiin waxa ay meelaha ay isku soo abaabulaan hab jabhada ah kaas oo ay ku soo qaadaan weeraro ay ku doonayaan inay dhiig ugu yeelaan rabitaankooda ama fikirka ay xambaarsan yihiin ay dadku ku tusiyaan inay weli jiraan ma jiro marka mustaqbal hadda la tilmaami karo oo laga sugayo kooxdaas ama la dhihi karo waa ay sii jiri doonaan way dhici kartaa inay meelaha ISIS iyo ama kooxda Daesh iyo al-shabaab meelaha ay qaar inay wax ku dilaan ama wax ay ka geystaan inay dadka ku handadaan inay baad bixiyaan inay shirkadaha iyo dadka ganacsatada ay u yeeraan ay dhahaan lacagtaas bixiya haddana ay sameeyaan wax ay dadkaas ku cabsi gelinayaan laakiin ma jiro mustaqbal ama sii jiris aan hadda filayno marka loo barbar dhigo xaaladii laga soo bilaabay markii ay ku dhex milmeen nidaamkii iyo markii isku dayeen inay waddanka ay qabsadaan oo meelo fara badan oo xamar ah ay gacanta ku dhigeen fikirkoodii al-shabaabnimada ay caddaysteen iyo maanta marka la isbarbar dhigo ma jiro mustaqbal muuqdo oo ay ku sii yeelan karaan jiritaanka inay Soomaaliya ay awood ku yeeshaan wax fara badanna dadka Soomaaliyeed way fahmeen culimada waxay qaateen go'aano waxa dadku ay go'aan u qaateen inay dhahaan fikirka xagjirnimada ah ee al-shabaab ma ahan mid diin ku salaysan ma ahan mid ka tarjumaya danta ummadda Soomaaliyeed waa fikir qaldan taasna waxay dhalisay dadka Soomaaliyeed inay fahmaan oo ay u arkaan in kooxdan ay tahay koox rabta inay wasaqayso magaca iyo islaamnimada dadka Soomaaliyeed 100% ku faanaan